ها laba buug waa inay kugu kala qoran yihiin maxaa la yiraahdaa clientigaaga iyo dadka aad doonaysa inay ganacsigan ka faa'iideystaan oo iyaguna noqon doona teamkaaga noqon doona insha Allah kaas waa qodobka afraad oo inaad follow up samayso waayo waxay noqon doontaa shaqadaadii rasmiga ahayd ee aad laga yaabo inaad hawlahaaga iyo kale dhan uga tanaasushid oo aad mustaqbalka ka dhigan lahayd weeyaan sidaa darteed laabudda inaad barnaamij u samaysatid inaad follow up maalinle ah saacadle ah minidle ah inaad u samaysatid oo waqtigaaga aad qayb ka siisid forever waxa weeyaan waa muhiim weeyaan jadwal inaad u samaysatid imise saacadood ayaad maalintii ku bixinaysaa forever imise saacadood ayaad clientigaaga ku bixinaysaa alaabta kuwa aad ka iibinaysid iyo kuwa aad ka dhiganaysid teamkaba waxa ku xigta marka insha Allah sponsor new teamkaagii dadkii cusba ee aad diiwaan gelinaysay ayaa ku xiga يرسل عليها اوكي waxa ku xigaya marka qodobkaaga shanaadna wuxuu noqon doonaa talaabada shanaad la qaadi doontaa inaad memberskaaga aad gaargaaraysid oo aad maartay iyagana aad kala habaysid oo say u kala hooseeyaan iyo aad u kala dhisid iyagu dhow team qof kasta oo aad kanta ilaa team uu sii sameynaya adigu marka waxaad noqonaysaa taliyii sare ee ciidanka noqonaysaa dabcan ciidanku way sii kala hooseeyaan oo qaybay sii kala leeyihiin waxaasoo dhan adiga ayaa manage garanaya inaanay iskaga dhex yaacin ayaa la rabaa walaalayaal shaashada miyaan la arkin miyaan screenka gala arkin ها walaal waa la arkaa si fiican de waxa laysoo qorayaa WhatsApp baa la arkaya shaashada meesha waxa hadaan ka hadlay meel la arkin meel idin muuqan WhatsApp baa la arkaya WhatsApp-ka waa la arkaya imika maxaa hadda maxaa idin muuqda WhatsApp baa noo muuqda adiga laguma jeedo kulay kuma rasahay WhatsApp kaliya loo jeedaa waa gartay okay muuqdo screenka ma muuqdo miya ma arkaan screenka hadda okay waa insha Allah walaal raalli hada okay waa yahay raalliga walaalayaal waxaan moodayay in waa yahay waxaanu maraynay insha Allah halkan waa circulationka ama rotationka qaabka shaqada ama qaabka ganacsiga forever ayaynu ku dhex jiray insha Allah oo iska introduction ah waa qaybtii waxaanu ka soo hadalay in qofku markuu soo galo forever dabadna uu balance samaysto kadibna uu sameeyo basically ama qaacidadii forever oo ahayd for case creditkii uu sameeyo kadibna uu clientigiisa maarta uu iyagana follow up ku sameeyo oo alaabta uu ka iibinayo dabadna uu qaabkay alaabta u iibsadeen iyo feedback ka soo noqonaya iyo qaabkay alaabtaas ay uga falceliyeen buu la socdo kadibna uu samaysto dhinaca kale ee ganacsigiisa oo ahaa teamkii inuu team dhisto insha Allah teamkaas oo ah source-ka ugu badan oo dhaqaalaha ka samayn doona insha Allah inta waxa ku xiga marka the last finalkii ugu dambeeyay ama stepkii ugu dambeeyay oo ah inaad present the business opportunity inaad mar walba aad soo bandhigtid ganacsigaaga fursadan ganacsi inaad dadka u soo bandhigtid walaalayaal waxaanu insha Allah ku sii soconaynaa case credit waxa la yiraahdaa waa taqaanaan insha Allah waa halbeega ganacsigeena oo runtii wax walba aynu ku qiyaasan karo waa ganacsigeena ama alaabada itemska ama productiga aynu haysanaa waxa uu ku base garaysan yahay waxa weeye waa case credit waana halbeega ama measurementga aynu isticmaalno goor walba aynu ku shaqaynayno dad badan baa inta badan waxay weydiiyaan ama iskaga qasan yihiin qaabka shirkadan loo soo galo iyo qaabka wax looga faa'iido su'aaluhu inta badan waxay ka yimaadaan assistant supervisor haddaan ahay goormaan noqon karaa assistant supervisor haddaan ahay maxaa heli karayaa goormaan supervisor noqon karayaa intee supervisor ku noqon karayaa haddaan laba supervisor isa soo aan supervisorkaygii iga sari haddaan soo gaaro maxaa dhacaya su'aalo noocaas ayaa inta badan bata iyo waxaan ay kala yihiin leader bonuska iyo jerma baxalka la yiraahdo maxaa la yiraahdaa team bonuska waxyaabahaasay inta badan lagu confuse kuwaasaan kor istaagana insha Allah markaad kuwa xaqiiqsatid ayaad garanaysaa marka dariiqa aad u maraysid guushaadii ama ganacsigaagii insha Allah inuu waadix ku yahay oo aadan cid kale aadan wax weydiinaynin preferred customer waxa weeyaan waa qofka cusub oo marka aad soo casuntay oo aad ganacsiga ku soo xirtay baa la yiraahdaa preferred customer waa qofka marka u horeysa uu ganacsiga soo galayo oo wuxuu helayaa ama uu haystaa oo ganacsiga ka bilaabaya waxa weeyaan 5% discount ah based on SRB waxa weeyaan waa
waxa loo soo gaabiyay suggested retail price weeyaan waa qiimaha ay shirkadu ugu tala gashay suggested retail price ka weeyaan qiimaha ay shirkadu ugu tala gashay inay ku iibiso waa qiimo aan la dhaafi karin waa qiimaha la rabo in meel walba ganacsigeenan gudaha iyo dibadba lagu iibiyo akhdaa badan baa laga soo sheegayaa dad badan baa qiimaha jabiya runtii oo wadankii jooga oo waxa la arka sheegaya alaabo aad qiimo aan macquul ahayn lagu iibiyo I don't know sababaha waxa ka dambeeya lama garanayo laakiin kulley ciladahaasi way jiraan laakiin waa mistake waana khalad waxa weeyaan ganacsiga iyo policyga shirkadda ayana waxaas meel kaga dhacayaan waxa jira waxa la yiraahdo SRB gaasi waa in aad loo tixgeliyaa haddii kaa lagu tunto wax faa'iido ama sameeyo wax micnaan ma sameeyo qofkii cusbaa ee ganacsiga soo galayna runtii dhaawac weyn buu ku noqonayaa waayo isagu wuxuu haystaa kaliya 5% marka uu soo galo waxa laga yaabaa shayga $10 inuu $9 kaliya ka faa'iido waayo $9 baa laga dhimay hadduu $10 ku iibiyo inuu half dollar inuu ka faa'iido ayaa dhici karta sidaa daraadeed preferred customer-ku waa qofka ugu horeeya oo marka uu shirkadda soo galo qiimo dhimista uu haystaana waxa weeyaan 5% 5%-ga markaad ku soo gashid forever oo dhan ilaa managerka ugu sarreeya waxa weeyaan 30%-gaas waa laga wada dhimaa marka uu noqdo assistant supervisor markuu noqdo wuxuu yeeshaa 35% waayo 30-gaas u wada raacaya oo 30%-gaas iyo 5-kii uu haystay 35% buu noqonaya kadibna waxa weeyaan sadonkaas qof walba joogto u ahaanaya laakiin supervisorka iyo assistant managerka iyo managerka mid walba number ayaa ugu sii kordhaya waa ka 30% markuu helay waa maxay wuxuu soconayaa 5%-ga ugu horeeyay ilaa wuxuu soconayaa boqolkiiba 18 ayuu soconaya oo 5%-ga waxa iska leh qofkii ugu horeeyay oo preferred customer-kii baa iska leh FBO markaad noqotay weeyaan kaga bilaamaysa FBO markaad noqoto ayuu sadonkaas ku bilaamaya 30%-kaas wuxuu ku bilaamaya marka aad noqotid forever business owner laakiin marka hore preferred customer baa tahay ama nervous customer ma lihid 30%-ga ma lihid 5% baad leedahay mar haddii aad FBO noqotay waxaa soo gashay hawlwadanadii shirkadda ayaad ka mid noqotay ganacsiga waxaa tahay member ka mid a forever aad noqotay tixgelin baad ku leedahay qiimo dhimis baad ku leedahay boqolkiiba 35 hore boqolkiiba 35 baad ku leedahay marka adiga 30 waa la waday laakiin shantii hore ku dheer aad ku soo gashay dabadna supervisorkaagiina wuxuu noqonayaa marka waxa loogu darayaa wuxuu noqonayaa 5 baa waxa loogu darayaa supervisorkiina wuxuu noqonayaa 8 3 baa loogu darayaa assistant managerkiina wuxuu noqonayaa isagana markii 5 loogu sii daro wuxuu noqonayaa 13 maxaa la yiraahdaa managerkiina 18 baa waxa marka waa 5 to 18 waa 5 ilaa 18 ayay isbedelaysaa qiimo dhimistu yani ilaa laga gaaro boqolkiiba 48 waa ka 35 to 48% waa qiimo dhimistii retail customer earning kan waxa weeyaan waa qiimo alaabtii aad iibinaysay wixii ka soo galayay weeyaan ma aha dadkii aad sponsor gareynaysa ma aha adigu waxa tahay FBO baad noqotay dabadna retail customer-kaagi dadkii aad wax ka iibinaysay oo aad alaabta ka iibinaysay waxaad ka faa'iidaysay waxa weeyaan waa 35% to 48% qiimo dhimistii weeyaan qiimo dhimistii aad lahayd weeyaan waa taas 30% plus 5 iyo ilaa laga gaaro maxaa la yiraahdaa waa 5% ilaa laga gaaro 18% waayahay laba qaybood baa marka loo kala qaaday retail customer earnings wixii aad ka faa'iidaysay ama aad ka xaqiijinaysay retail customer-kaaga iyo preferred customer-ka wixii aad ka faa'iido aad ka helaysay labada faa'iido ama labada dakhli ee forever laga helo labada ayay kale adiga oo FBO ayaad waxaad kala helaysaa laba qaybood oo dad ah qaybina waxa weeyaan waa retail customer-ka alaabta ka iibinaysay qiimo dhimisteedina waa lagu sheegay qolana waxa weeyaan preferred customer-kii weeyaan aad qortay oo aad shaqada ku soo casuntay ama aad ganacsiga ku soo biirisay kaasna waxa weeyaan 30 ilaa 40% oo aad ka heli doontid iibka isagu uu sameeyo waa waxaynu commission-ka u naqaano weeyaan ayaad ka samayn doontaa insha Allah waad fahanteen baan u maleynayaa halka markaad maraysid waxaa lagu siiyey period 2 bilood abaa lagu siiyey inaad darajo walba ku xaqiijisid even that u horeysa markaad preferred customer tahay aad cusub tahay xitaa labada CC one time inaad iibsatay khasab kuguma aha laakiin adiga ayay dani kugu jirtaa inaad 2 bilood gudahood aad assistant supervisor aad ku noqotid marka kulley mar haddaad noqotay assistant supervisor marka ayay shaqadu kugu bilaamaysaa dabadna waxaa lagaa rabaa 2 bilood inaad darajo walba ku xaqiijisid biidnillah waayahay labadii CC ugu horeeyay haddaynu ka soo qaadno
labada cc oo horeeyay مثلا ba hadana ka soo qaadno waxa weeyaan waa meesha ay kaaga bilaamayso weeyaan 2 cc waa meesha ka bilowday weeyaan waa marka meesha uu tareenka ka bilaamay ka istaarmaya waayo waxaad noqotay assistant supervisor baad noqotay assistant supervisor ayaad noqotay waayo waxaadna haysataa qiimo dhimis boqolkiiba 35 ah maasha Allah halka weeye marka meesha dad badan ku ragaadmeen oo qodaxdu inta ku muday ka kici waayay ku riiqday ku sibiriirixday waa barta weeyaan waxa la yiraahdaa wadada ama gaabka ugu adag ee forefa inta badan guusheeda marka la xaqiijinayo lagu rafto meesha baaburku marka uu marayo maarta aan laamiga ahayn karkar baa la yiraahdaa maarta meel yare uu baaburta taayirada ka dhama dadkuna ay ku rafaadaan waxa weeyaan waa supervisorka inta laga gaaray weeyaan meesha la doonayo indhaha isku qabatid oo aad guntiga dhiisha iskaga dhigtid oo aad maarta isku try gareysay inaad xooga saartay waxa weeyaan waa space ka weey inta aad wadada inta ku sii jirtid 25 cc gaas waayo waa xilliga aad creation ku sameynaysa ama aad generate gareynaysid teamkaaga mar haddii aad 25 cc ma xaqiijin kartid haddaadan team samayn waayo adigu jeebkaaga kama iibsan kartid 25 cc oo kiiba 240 ama 250 u dhigmo impossible weeyaan xitaa waxaan filayaa policyga shirkadda xitaa inaanay ka mid ahayn in qofku intaa ka badan xitaa uu iibsan karaba laakiin waa in team uu keenaa oo dadkaas ay iibsadaan sidaa daraadeed marka aad intaa samaysay hawl badan baad samaysay shaqo fiican baad qabatay maasha Allah tacab baa galay 25 cc markaad gaartid aad supervisor noqotid darajada supervisor markaad hoosta ka xariiqdid maasha Allah waa marka aad u soo bixaysid marka inaad marka aad 38% u noqdo qiimo dhimistaadii dabadna aad noqotay sarkaal kamid ah saraakiisha shirkadda maasha Allah tixgali fiican kale rajo fiican qaba insha Allah marka ayaad hawaysan kartaa inaad manager iyo wixii ka sareeyay aad u hub qaadatay insha Allah biidnillah waayo waa marka xitaa aad daarti u tagi kartid manager xitaa waxaad ka boodi kartaa waxaan la yiraahdo assistant manager xitaa marka waad ka boodi kartaa supervisor adigoo ah toos baad manager u noqon kartaa dadadan baana xaqiijiye xaqiiqad laakiin adigoo assistant supervisor way adagta inaad hal mar manager gaartid horta waa inaad ku sii hakataa maxadada ama stationka la yiraahdo supervisor waa muhiim inaad ku sii hakataa haddaad dootid 10 cisho ku jir ama bil ku jir ama 2 bilood ku jir waa muhiim weeyaan waxa ku xigta assistant manager kii ayaa ku xigo isaguna 43% aad heleysay halkan waxa ku qoran waa total personal discount kii weeyaan halkaas ay kuugu caddahay assistant supervisor kii waad aragtaa waa 35% discount kaad haysataa supervisor kiina waa 38% discount kaad haysataa assistant manager kiina waa 43% waxa weeyaan alaabadii adigu aad iibsanaysay weeyaan intii laga dhimay way waxan weeyaan maaha lacag aad heleysay maaha bonus commission aad heleysay maaha halkaas ay iskaga kin khaldamin percentage-da halka ku qorni waxa weeyaan waa total personal discounts waxa ugu dambeeya oo qiimo dhimis loo sameeyaa waa managerka oo isaguna 120 cc 2 bilood ama 150 cc oo 4 bilood aad ku xaqiijinaysa kadibna wata qiimo dhimis shirkadu marka qiimo dhimista ay samaysaa waa shanta qiimo dhimis shanta u horeysa lagu soo galo iyo afarta ay saraakiisha ama hawlwadeennada shirkadda la siiyay oo lagu abaalmariyay si ay u kala sareeyaan maasha Allah waxa jira marka dhaqaale kala jira marka kan waa xaqi dukaankaaga ay khusaysaa iyo iibka aad sameynaysa ay kuwaas ku khusayaan maasha Allah waxa jira marka wax la yiraahdo referral customer bonus marka dadkii adigu aad shaqaalaysiisay wixii aad ka heleysay bonuskii aad ka heleysay ayaa marka laga rabaa haddii aad tahay assistant supervisor 5% kaliya ayaad leedahay laakiin marka aad noqotid supervisorna 8% ayaa ku raacaya marka aad noqotid assistant managerna 30% iyo manager 18% yaa group bonuska marka waa kan group bonuska way meesha loo tartamaya la rabaa inaad degdeg u gaartid waayo markaan ku leeyahay supervisor waa inaad dhaqso u gaartay haddaad assistant supervisor tahay ha isku ilaawina assistant supervisor noqotid waayo supervisor mar haddaad noqotid at least waxa weeyaan halka haddaad doontid waaba iskaga intaas waa inay ku qanciso waaba laga yaabaa haddii hankaagu intaa yahayo kulli at least group bonus baad heshay oo dadkii aad ka hooseeyay waxbaad ka helaysaa laakiin markaad assistant supervisor tahay dee cidlaad iska fadhidaa laba season baad iibsatay wax kale meesha kuma haysid marka supervisor markaad noqotid you have to take care yani 3% baad heshay oo wax la yiraahdo group bonus marka aad noqotid assistant managerna aan ku noqdo supervisor marka tahay 3% ga ayaad ku leedahay 3% gaas xagaad ka helaysaa waxa weeyaan supervisorka adiga ka hooseeya supervisorada assistant supervisorada ka hooseeya
oo laba CC-yaasha hadda soo galay oo labadii CC buuxiyay oo adiga teamkaaga weeyaan kuwa aad ku yeelanaysaa 3%-ga laakiin assistant manager markaa noqotid laba dhaqaale ayaad helaysaa oo midna yahay supervisorka oo aad 5% ku yeelanaysid iyo assistant supervisorka oo aad 8% ku yeelanaysid iyo bonuskii preferred customerka cusub qofka cusubna aad ku yeelanaysid 13% iyo discount-kaaga iyo 43 inta halkaas daba talabaad rabtaa oo aad dhaqaale helaysid maasha Allah managerkii isaguna sidoo kale waa kaas waa 5% oo assistant managerka aad ku helaysid iyo 10% oo supervisorka iyo 13% oo assistant supervisorka iyo 18% oo preferred customerka ah waayahay waa qualification-kii marka waa kan qualification for group bonus for CC active waxaa la soo kaaday personalki iyo retailki iyo preferredki dadkii cusbaa marka inta la isku daro waa inaad ka soo samaysaa 4 CC bishii 4 CC aad mushkiladda iyo cunsurta aad moodaysid oo culayska kugu noqonaya very simple weeya waayo waa lagu balaariyay waa lagu fududeeyay kaliya adigu ID-gaaga 1 CC haddaad ku iibsatid inta kale waxa kaaga filan ama alaabaad iibisay ama ID-gaaga lagu iibsaday xitaa adigu yaad lacag bixine lagu iibsaday ayaa kaaga filan oo retail baa la yiraahdaa taas waa alaabadii aad soo iibisay weeyaan aad sii iibisay 1.5 meter haddaad ku iibisay maxaa la yiraahdaa preferred customer hal qof oo aad diiwaan gelisana uu 1.5 iibsaday halkan ka hadlaya waxa weeyaan waa halkan matalan hal qof oo aad diiwaan gelisay oo 1.5 CC iibsaday alaaba aad adigu iibisay oo sii iibisay ama ID-gaaga lagu iibsadayna 1.5 CC ay ka keeneen waa 3 CC kaliya adiga marka waxa lagaaga baahan yahay hal CC inaad 4 CC ku bixiso marka haddaad 4 CC ka adkaatay wanagii hore u sheegnay yani ganacsigaaga waad ka guulaysatay guul baad ka gaartay maasha Allah meel fiican baad rajo fiican baad leedahay waxa halka aynu ku soo marnay oo dhan waad xaqiijinaysaa marka percentage-da group bonuska iyo preferred customer bonuska iyo retail discount isagu waa joogto isagu kuma xidhna 4cc kuma xidhna isagu laakiin inta bonus ee kale waxa ka xajbi kara xajab waxa dhaxalka hadaad arki jirteen waxa dhaxalka la oran jiray qof baa ehelkiisu dhimanaya markaas isagoo dadka ugu dhawaaba laga yaabo in la yiraahdo waa la xajbay waa laga xajbayo yani qof ka xaq leh baa ku diiday way mesela iyadoo aaba dhintay mesela caruur ka tagay oo kale walaalihii iyo dad kale oo iyagu isaga malabsanayo xoolahan iyagu isku tirinayay ayaa la oranay meesha hadii caruur joogo xajab baa jira waa laga xajbay macni waa lagu diiday weeyaan wax ka mudan baa yimi wax ka xaaraantiminaya waa meeshii yimi marka 4cc gaasi hadaadan samayn waxay xajab kaaga samaynaysaa ama albaab kaaga xidhaysaa waxaas bonus oo aad yeelan lahayd ama aad qaadan lahayd ay ka xidhay idan waxa laga yaabaa dhaqaalaha aad la baxayshay ama aad xitaa aad ku iibsan kar lahayd iska deysay inay ka soo gal lahayd intaas bonus marka la isu geegeeyo ma sha Allah waxyaabaha kale oo laga helo waxa kamid ah oo ay 4cc gaasi uu ka xanibi doono si aad guusha u gaartid waxa weeyaan leadership bonus kaagi oo isaguna ilaa 3 darajo oo managerada kala hooseeya oo levelkaaga kala hooseeya mid walba waxaad ku heli lahayd 6%, 3% and 2%. waxyaabaha inaad hore u aragteen baan jeclahay insha Allah way markaad adigu manager noqotid oo manager kaasi hoos baxo mid kale kaasi hoos baxo mid kale kaasi hoos baxo saddexda generation mid walba waxaad ku sii yeelanaysaa wax leader bonus la yiraahdo oo 6% iyo 3% iyo 2% ayaa hadii laakiin aad 4cc ga sameeynin waxa weeyaan ma heli doontid waxyaabahaas insha Allah iyagana waa inaad ka sii taxadirtaa biidnillah sidoo kale eagle manager rebate eagle managerkii iyo forever to drive kii baabuurtii iyo global rally-gii iyo german bonuskii iyo gym bonuskii waxyaabahaas oo dhan waxa inta leaderadu idinku celcelinayaan or 4cc ga iska xijiya iska adkeeya meel iskaga xidha bisha bilowgeeda hadda bari bishu waa kow waa inaad ka faa'iidaystaa ilaa 5 ilaa 7 waa inaan kula dhaafin in aad 4cc cirka iyo dhulka meel kasta ka keenaa meel iska dhig dabadna maskaxiyan yani waxa weeye murtaax baad noqonaysaa nafsiyan baad murtaax noqonaysaa culays badan baa kaa digaya laakiin dad baan ogahay caawada qaar baa xarunta isku maartay saxmadeynaya oo rabaan 4cc wax ka dhaban yihiin wali rabaan buuxiyaan yani qofkaas oo kale madax wareer isaga isku keenaya de marka waxaas oo dhan oo aad dhaqaale samayn lahayd ayay ka xajibaysaa ama ka celinaysaa 4cc horumarkaagina waxa weeyaan way hor istaagaysaa marka qaacidada foorama waxa weeye inaad isticmaashid share garaysidna 4cc inaad productigi isticmaashid oo share garaysid 4cc na bil walba aad isticmaashid bil walba inaad 4cc aad gudbisid asxaabtaadana u sheegtid sponsor and teach others to do 4cc
sidoo kale afarta cc kaliya ha isku koobina markaad adigu ka adkaatid waayo wax adiga aadan samayn dee tiimkaagii sameeya ma oran kartid adigay kugu soo jeensanayaan dee adba maad samayn bay ku oranayaan maxaad naga wadaa horta adigu iska bilow adigu samay markaad samaysid oo afarta cc meel iskaga xigtid oo waliba reportkaaga aad tustid intaad pagekaaga uga soo sawirtid aad tustid waxaad tahay saaxiibeen anigu waan sameeyay idinka maxaa idin fadhi maxaa idin dhigadee way kugu dhiiranayaan markaas dadka inta badan afka wax loogama sheegay action wax loogu sheega haddaad leader tahay aad hogaamiye tahay inta badan dadku waxay in badan waxa aad u sheegaysid ku akhrinaysid waxay ka jecel yihiin waxa aad samaynaysid ayay ka jecel yihiin oo ay ku dhaqaaqaan qisa waxaa jirtay casrigii saxaabatu nabi sallallahu alayhi wasallam nabigeena berigii qaswatul xafaliina fatx makka inaad baan jeclahay ayaa jirtay mar ay asxaabtu iyagoo dhowr iyo 10 kun ah inay soo ag istaageen markii la furanayay meesha la yiraahdo makka marka qisa ayaa dhacday inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu wax faray asxaabta dabadeedna ay malaasi uga yare cagajiideen miyuu ku adkaaday wixii ma waxaan hore u maqalba way ka yareen waxa sameeyay buu yiri dabadeedna toosna uma aanay diidin oo nabiga amarkiisa ma diidi karaan haddana xogaa way yareen siba u yare cagajiideen dabadeedna nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo dee akhlaaqeed cajiib adeegsanaya kuma aanu qaylin ma canaanan wax kale kuma samayn wuxuu naseexo fiican ka helay axad zawjaati yani zawjaadkiisa mid ka mid ah oo dabcan marka qaswada la socotay ayuun baa artay isagoo fikiraya oo walwalsan oo yani arrintii xoogaa si kaya tahay markaasay ku tiri yaa rasuulallah maxaa kugu dhacay markaasuu u sheegay waxay tiri maxaa isla wareerinaysaa maxaaba isu wareerin waxaan aad dadka faraysid horta adigu samay asxaabtaadii weeye kuguma khilaafi karaan amarka waxa adigu aad samaysay way ku khasbayn inay sameeyaan marka adigu samay intaad afka uga sheegayso waxa ka daran waxa ka wanaagsan oo ka muhiimsan inaad adigu actionkii samaysid markaas waa marka uu naxarka sameynaya marka geela badan uu qalaya marka oo timaa iska xiirayo ma sha Allah markii bay wada bilaabeen marka maxay ku deedeen actionkii bay ku deedeen waxaan ka wadaa qofka aad adigu hogaamiyaha u tahay oo adiga ka hooseeya oo ama ardaha noqoto ama ciidan ha noqdeen actionka adigu aad samaysid iyo talaabada aad qaadid iyo ficilka aad samaysid ayuu in badan ka jecel yahay waxa aad afka uga sheegaysid sidaa daraadeed 4cc sameeya kuma oranayaan kaama qaadanay in badan oo tiimka ka mid kaama aqbalayaan haddaadan adigii leaderka aadan bilaabin oo aadan samayn ama supervisor ahaw ama assistant supervisor ahaw ama manager ahaw ama whatever waxa doonto ahaw laakiin waa inay kugu deedaan marka 4cc marka hawsheeda waxa weeyaan dadka dhibka ka haysata haddaynu sii yar dul istaagno habeen dhawada training baan kaga hadlay waxa la yiraahdo baab inaad samaysid BUBB waa qaab alaabta loo iibgeeyo waayo dadka dhibku wuxuu ka haystaa waxa weeyaan alaabadan ayaan dadka ka soconayn say sheegayaan weey mana aha dhab ma aha arrintaas dadka iyagaan alaabta socodsiineen qofkii isaga baan alaabta xayeysiis u sameeyeen isagii baan wadooyinkii alaabta ku iibsami lahayd albaabaday ku iibsami lahayd ayaanu garaacayn dabadna alaab guri iska taalo oo aan dukaan la yani nidaamka forever waxa kamid ah inaan dukaan malahayn dadku waxa marka uu soo galay waxa leeyahay ganacsi aadan dukaan furanayn aadan bakhaar furanayn aad guriga ku iibsanaysid okay inta qofkii wuxuu qaatay inuu alaabta gurigiisa iskala fadhiyo arrintu inta way ka duwan tahay waa inaad suuq geysa alaabtii waxa tahay flexible baa laga dhigay adiga qof flexible maartay movable maartay mobile business way waxa waa mobile business waa ganacsi aan meel ku xadidnayn marka adigu meesha aad dukaan inaad dhigtid aad ka samayn lahayd waxaad bakan gurigaaga aad ku xanibsay alaabtii guriga inaad la fariista alaabta lama rabo alaabta guriga ha la fariisanay suuq gey socodsii tricks aqliga ka shaqaysii alaabada xidhmooyin u samay customerkaaga waxay jecel yihiin isugu xidhxidh isugu habay midda kale adigu alaabo fara badan oo productyada forever oo dhan ha soo wada iibsan ha isku mashquulin yani waxaasoo dhan waxa laga yaabaa maskaxdaada xitaa inaan wada qaadi karin inaadan wada sharixi karin inaadan dadka wada fahansiin karin baa suurtagal ah oo qaarkood cillada kaa haysato qaarkood cilladayra ka yimaadaan baa iska dhici karta dadka ama allergic ku yihiin adigu waxaad xulataa one product ama two products adiga ku gaar lagugu barto oo adiga caan ku tahay oo aad xafiday sida faatixada quraanka aad u xafiday oo adigu aad dhakhtar weyn ku noqotay qaado inta halkeeda cc ka ku adkow ama alaab ha noqoto ama qaab cudurrada lagula tacaalo oo maartay loo isticmaalo ha noqotay mesela gastriga oo kale baabasiir oo kale halka waxa loo isticmaalo baad baratay inta shay u yahay muddada la isticmaalayo sida loo isticmaalayo customerkii baad baratay isticmaalayay dadkiiba iyaga markaas suuqgeyn ku sameynaya qofka gastriga isticmaala oo ku bogsada intaasoo qof buu ku keenaya halka marka aad xoog saar marka sirta meesha ku jirta waa inta weeyaan haddana marka مثال soo qaadana مثلا 1cc
hal cc kaliya markaad diyaarsato oo alaabtaas ah مثلا baabasiirta oo kale waxa lagula tacaalo waxaynu nidhi alaabtani daawo maaha baynu nidhi daawo laguma magacaabo in badan baa taas arrintaas runtii booliska shirkadana ka mid maaha laakiin waxa weeyaan waa caawiye weeye caawiye laakiin daawadii ka fiican weeyaan kana side effect yar aan lahayn waxaad samaynaysaa marka group baad alaabta isugu xiranaysaa hadda markaynu soo qaadano aloe vera gel iyo fields of green waa labada shay ee inta badan gastriga loo isticmaalo haddii lagu daro aloe vera jelly iyo aloe libiskana waxa weeyaan waxaa loo isticmaalaa baabasiirta marka qofkaad intaas siisay inuu gastrigina kaga dawoobo waa suuragal oo aan u baahan marka aan laba jeer kala iibsanayn waxaad leedahay baabasiirta ayaan haya wax lagula tacaalo ama lagu daaweeyo maasha allah waa hal cc ayaad intaa isku jaangoysay 15 shay ayaad ka dhigatay maasha allah qaabkan halkan waxa kugu yaala haddaan iradul carabna waxa weeyaan qiimayaashii oo reediya weeyaan oo diyaara halka cc qiimahoodii oo ku diyaara adiga marka waxay ku xiran tahay nooca fbo aad tahay adigu iyo levelka aad taagan tahay iyo discount aad haysatid bay kugu xiran tahay haddii مثلا aad tahay adigu maxaa la yiraahdaa aad tahay مثلا qof cusub oo kale preferred customer oo kale aad tahay halkaas ay noqonaysaa insha Allah kaas baad eeganaysaa qiimahaas baad eeganaysaa halka cc qiimihiisa waa kaas haddii aad tahay assistant supervisor intaas baad eeganaysaa waka 206 bay ku kaliftay مثلا alaabada lagu daaweynayo baabasiirta haddii aad tahay supervisor 185 bay ku kaliftay qiimaha hoose waa ka weyn haddii aad tahay assistant managerna 172 haddii aad tahay managerna 150 waana hal cc halka casaanka waa taas hal cc weeyaan inta markaad joogto ka dhigatid alaabada sawirkeedina halka kuugu yaalaan waxa weeyaan ganacsigaagiiba intaas ku xadeysan yahay khalaas dukaankaagi waa ku camiran yahay bil walba inta miyaad dalban kari weyday laba qof ama saddex qofna meelaha ma ka soo qaban weydaa diiwaan gelisay marka afarta cc aad kala wadaagtay maxay tahay marka intan gurigaaga yaan laga waayin bil walba yani intaas waxa weeyaan waa 15 shay yani saddex qof baa loogu talagalay hadda intan waa saddex qof weeyaan saddex qof aad bisha waxaad ka daweysay مثلا baabasiir ama gaastir ka daweysay مثلا waa okay weeyaan way ku shaqaynaysaa haddaad qaaciyada isticmaashid insha Allah مثلا جريدة علاوش oo kale waa tan dadka caloosha iska jaraya مثلا waa shaahi iyo gaarsiina plus lix xabo oo shaahi مثلا waa saddex qof iyo saddex miro gaarsiina plus markaad qaadatay waa hal cc iyaduna intaas aad joogto ka dhiganaysaa samaysanaysaa alo libiska maaha in caloosha lagu jaro micnaheedu laakiin waxaan ugu daray waa shayga ugu yar ugu qiimo jaban weeyaan marka inta badan waxa lagu buuxiyaa cc-yada lagu buuxiyaa cc-gaaga markii waxoogaa ka dhilmaan alo libiska ayaad ku buuxinaysaa waayo alo libiska xitaa hadiyad waa loo bixiyaa qiimayr waa la iskaga iibiyaa waa shay multi purpose oo maartay qof walba iska isticmaali karo oo maartay xitaa ganacsigaaga ayuu wuxuu ku noqon karaa inaad hadiyad ahaan inta u bixisid dadka aad ku soo jiidato ayaad samayn kartaa xitaa insha Allah waayo hadda 6 xabo dhan ayaa waxay yihiin waxay ku noqonayaan 22 dinar $2 bay noqonayaan ilaa $12 marka managerka taa kale waa $12 bay ku kalifayaan laakiin qiimaheedu waa 3.96 weeyaan marka waxaan aad idinku boorinayaa alaabta qiimaheeda yaan la jebin halkaas qiimahaasi waa retail price-ka shirkadu ugu tala gashay brothers and sisters aad uga taxadara wax yarba haddaad wax dhimaysid waxaan weynayn baad ka dhimi kartaa oo qofka aad waliba sabab uga dhintay oo qofkaas uu qof customer leh ama dad wax kale ku soo jeedi uu yahay laakiin haddii aynu policy-ga wada isticmaalno ganacsigana waxa weeyaan guulo fiican baa laga gaaraya walaalaha cusubna dhib ka dareemi maayaan laakiin qofka managerka markuu مثلا ba uu 6 xabo markuu 60 ku iibsado مثلا waxa weeyaan waa 6 xabo shaaha markuu 60 ku iibsado qofkii cisbaana uu ku iibsado $110 ku iibsado $50 baa u dhaxeeya haye markaad qiimo jaban ku iibsado waa de walaalka baad cawaraysaa marka insha Allah arrintan la iska ilaaliyo adigu waxaad samaysanaysaa مثالك waxaan idinku soo dhigay inuu qofku target gareeyo 1cc gastrigi waa kan ma sha Allah gastrigina waa kan waxa weeyaan isagana waa saas oo kale waa soo bartay alo libiska isagana waa sidoo kale waxaan ugu daray inaad cc-ga ku buuxisid laakiin muhiimaddu waxa weeyaan waa aloe vera gelka iyo fields of green ka weeyaan ma sha Allah infectionka iyo caado wareerkiisna waa kan waa nectarkii berry nectarkii iyo fertilizer womankii isaguna waa 1.1 cc يعني kuwaas waa kuwa aad ka dhiganaysa rasmiga oo adiga qaacida ku ah oo aad bil walba si aad uga adkaatid wixii la oran jiray maxaa la yiraahdaa 4 cc oo aad inoo xanuujiso runtii dadku aad uga caawdaan dad badan ay la fariisatay
lafa xanuunkii oo kale waa kuwan productyada loogu talagalay lafa xanuunka oo dhan waa kuwan halka kugu yaala inta marka isku dalbatid 1.072 cc gurigaaga ku taalo laba qof oo lafa tukubayo oo gurguuranaya ama baakorada ku tukubayay ayaad ka kicisay ilaahay idankiis alxamdulillah ku ducaynaya iyaguna dadka la ku keeni doonaan insha Allah tii raganimada oo kale iyana waatan dabcan waa berry nectarka iyo multimaka iyo fertilized woman alo tooth jelkaas waxaan ugu daray laba xabaa la iskaga darayo dee qofku ku buuxsado laakiin iyadu maaha in tooth belka in raganimo loo isticmaalo maaha laakiin waxa weeyaan waa berry nectarka iyo multimaka iyo fertilized minkaas labada kinin iyo cabitaanka un weeyaan laakiin number 2 ga oo ah bast bright tooth jelki waa kiilka lagu cadeynay weeyaan isaga waxa weeyaan waa balance ma anagu dhigna maanta waa lagu bixi labada xabo siisidu ma lagu bixi marka iyaduna waa sidaas intaas ka dhigin kartaa ganacsi inta qura ayaad meel ku xiran kartaa oo oran kartaa aniga bil walba inta halay dalbo 10 ka shay maxaaba nooli far badan ee lagaga qaadanaya ee guri boos weyn kaaga qaadanayaan oo yani ay ku saxmadeenayaanba intaas haday ku socoto halkii cc ka buuxiso hadii inta degdeg lagaga qaato markaba hadana marka la dalbo oo ku buuxiso lacagta haday ku soo noqoto ma sha Allah tricks-kaas la isticmaalaa waayahay halkan waxa la inoo overview review-gani waxaan ku sameynaynaa plan marketing plan review-gani laba shay oo muhiim ah marka aad mar walba subax walba indhaha ku kala qaado walaalayaal ganacsigaaga kama xiisa dhacaysid waadna ku dhiiranaysaa ma sha Allah guulaha aad doonaysidna degdeg baad u gaaraysaa insha Allah si fiican marka ula soco qodobada halka ku yaala waa wax xaqiiqa oo la wada xaqiijiyay adiguna aad gaari kartid mid waxa weeyaan featureska waa waxyaabaha asbaabta kugu kalifaya forever ama waxyaabaha ay aad kaga xulatay ganacsiyada kale traditional businesska ama noocyada kale ee network marketingka ganacsiyada kale ee kan la midka waxyaabaha uu kaga fiican yahay oo aan inaba ku gaaraynin forever hadii matalan qofka aad ganacsiga u soo bandhigaysid oo kale ama fursada u soo bandhigaysid waxyaabaha buu ku weydiin karaa wuxuu ku weydiinayaa kow maxay kaga fiican tahay forever ganacsiyada kale laba wuxuu koranayaa maxaan ka helayaa faa'iidooyinka aan ka helayo ii sheeg labadiiba halkaas lagu dhigay si fiican u xafid insha Allah waa itus oo itaabsi adigu markaa tahay FBO inta waana xafidsan tahay oo aad tagana waa waxa ku jecelaysiinaya ganacsigaaga waa waxa aad niyad siniyada ugu shaqaynaysid oo aadan cidna u joojinin oo qolada nooda tiraahda ama mayada tiraahda ama ku niyad jabinaysa waxyaabaha aad kaga guuleysan kartid mar walba haddii aad kuwan xusuusan tahay waxa weeyaan chance ka heli maayaan ay kugu nacsiyaan ganacsigaaga ama ay kaaga sii jeediyaan kow forever waxa laga helaa bonus iyo discounts based on SRB ga horeen u soo sheegnay suggested retail price يعني qiimaha iyadoo laga duulayo qiimaha shirkadu u jaangoysay ganacsigan ayaad waxaad leedahay qiimo dhimis adigu marka toos u iibsanaysid iyo bonus dadka teamkaaga markay iibsadaan laga siinayo laba wax weeyaan halka faa'iido ka helaysa kow oo alaabta la iibsaday ayaa dhaqaale ka helaysa mid adiga ka helayo oo intaad soo iibsatay ayaa laga dhimay qiimihii min 5% to 48% baa laga dhimay kadibna qiimihii caadiga ah baad ku iibisay SRB gi baad ku iibisay faa'iidada ka soo noqotay adiga iskale mid kalena waxa weeyaan dad baad u dirtay ID-gaaga ku iibsaday iyaduna taasay la mid tahay sidoo kale online baa lagaga iibsaday ama link baad dirtay oo waxa lagaga iibsaday midna adoo Soomaaliya jooga ayaad qof Mareykan jooga u dirtay link-gaagi page-kaagi baa walaab lagaga iibsaday qofkaas isagoo Mareykan jooga gurigiisa jooga ayuu link-ga raacay dabadna website-ka shirkadda ayuu geeyay dabadna wuxuu leeyahay ma page-kii Aisha ama Ahmed baad wax ku iibsanaysaa haa baa tiri haa buu qofkaas oranaya halkaas iib ka sameynaya qofkaas adigu waad iska hurdaayo ogow Mareykan iyo Soomaaliya isku waqti maaha saq dhaxad ku jirtay adigu waxa ma ogid qofka ee maalin duhur u tahay Mareykan iib uu sameeyay dukaankaagii wax ka iibsaday adigu ma ogid shirkadiina waxeedii qiimaheedii caadiga bay ku iibsatay adigana discount-ka aad ku lahayd baa ku haraya taas waa si kale ayaa jirta oo inta badan walaaluhu soo weydiiyaan oo ah haddaan qof u diro numberkayga ID-gayga u diro isagoo waddanka kala jooga maxaan faa'iidaya anigu waa laba qaab weey mid waa kan hadda ku sheegayo haddaad link u dirtid adigu waxaad faa'iidaysaa laba jeer kow in aad discount in aad bonuskaaga kaaga soo noqdo iibka oo waxaan leeyahay bonus ma discount-ka aad lahayd halka inuu kaaga soo noqdo aad faa'iidadii retail profit-kii halka uu kaaga soo noqdo oo adiga shirkadda qiimuhu markay qiimaheeda qaadato inta soo hartana adigu aad wixii aad ku lahayd adiga systemkaaga lagugu daro waxaad kala faa'iideysaa waa CC-yada demasha iibka ka dhacay inta CC uu yahay hadii 2 CC la iibsaday hadii 10 CC la iibsaday adigu bay xisaabtaada soo galaya laakiin hadii aad si direct ugu dirtid qofka ehelkaaga ama qaraabadaada ama saaxiibka aad numberkaaga toos u siisid oo tiraahdid numberkaaga wax ku iibso waxa weeyaan qofkaas shirkadii uu tagayaa toos u tagayaa
wuxuu oranayaa numberkaa wax iga iibiya dabadna waxay la mid tahay adigu wax ku iibsaday adiga magacaagii oo kale ayaa soo baxaya dabadna adiga lagaa iibiyey ayay la mid tahay sidaa daraaddeed adigu halkaas wax retail return ka heli maysid oo kaaga soo noqonaya qiimo dhimista waayo qiimo dhimistaada wax lagaaga iibiyey retail price retail faa'iida ka heli maysid laakiin waxaad helaysaa CC-yadii ayaad helaysaa halka tan aad ka helaysaa taan waan u kala fahantaa marka faa'iidooyinka waxyaabaha aan ku dooranay forever walaalayaal waxaa ka mid ah 2 months move up waqti baa lagu siiyey maasha Allah 2 bilood 60 cisho iyo ka badan ayaa lagu siiyey chance inaad levelka ku bedeli kartid adigoo awoodi kara inaad 10 cisho ku bedeli kartid ama 2 cisho ku bedeli kartid ayaa haddana chance fiican lagu siiyey oo 2 bilood waqti yar ma aha runtii qof doonaya horumar qof shaqaysanaya 2 bilood waqti aad u badan way runtii no level requalification yani waxaan ogahay anu waan aqaanaa shirkado badan oo network market ka shaqeeyo markaad level gaartay haddii aad maalmo seexatid ama si kaayir noqoto ama ka jabto ku oranaya barti ka soo bilow forever wax weeyaan darajada aad xaqiijisay ama levelka aad xaqiijisay waa sidaad u xaqiijisay weeyaan waa laga yaabaa inaad xuquuq mar qaarkood weydid aad is active noqotid waa dhici kartaa dabadna hadhow lagu yiraahdo activation soo samay waa dhici kartaa laakiin in mar never in lagu yiraahdo halkii assistant supervisor ka soo bilow suuragal ma aha waana waxyaabaha ugu aad ka horeysa weeyaan shirkado badan oo lamid ah waxaa ka mid ah no bus abis waxa la isbaasaya ma jiraan haba yaraatee waa goorma waa ilaa assistant supervisor ilaa managerka weeyaan assistant supervisor to manager waxa weeyaan no bus up ma jiro bus up qofkii adigu aad keento hadduu soo dalaco oo kugu keeno ama uu maartay adigoo supervisor haddii uu assistant supervisor kaaga hadduu 25 cc soo dhufto adigu kula yimaado waxa weeyaan adna waad la kacaysaa adna kurbaad la kacaysaa waxa weeyaan darajadii waad wada noqonaysaan yani waxa ka wada adigoo assistant supervisor oo daqiiqa go'aan hadda doonto 5 dhibcood ka badan ba aan haysan 5 dhibcood ka badan adigoo aan haysanba haddii qofkii aad qortay oo cusba haddii uu 25 kiiba isbuuc gudihi ku xaqiijiyo dee ma sha Allah waa khayr cirka kaaga soo dhacay weeyeen qofkan aad keentay ayaaba ka dhigay supervisor automatically supervisor baad noqonaysaa kaliya maxaa laga rabaa oo CC active taas iyo ka hoos bixin kaliya haddaad 4 CC ka adkaatid qofkaaga 25 CC raadinayay haddii ilaahay qof kuu soo diray aad keentay oo isagu 25 kiiba la yimid intuu team samaystay adigana 4 CC dabadna waxaad noqonaysaa ma sha Allah bonuskaagi waxaagana waad yeelanaysaa waxa ka mid ah proof and track records waxa dhacaya oo dhan wax record gareysan weeyaan wax ka khaldamayana ma jiraan sida wax u socdaan oo dhan ilaa maalinta aad soo gashid ilaa level kasta aad gaartid iyo bonuskaaga iyo reportyada iyo wax walba wax weeyaan waa ku record gareysan wax ka dayacmayana ma jiraan ma jirto wax inventory la yiraahdo ama meel aad bakhaar alaab isugu ururinayso aad dukaan weyn furanayso maartay aad ku mashquulayso shaqaale keensanayso ma sha Allah baabuur iyo tareelayaal aad raadaysid ma jiraan no investment at all wax maalgelin la yiraahdo oo weyn aan ka ahayn 480 ka wax la mid ah oo iyadana aan maalgelin lagu sheegi karin ma aha ma jirto consumable productiga la isticmaalaya wax isaga galisa ama khasab oo la macmalaya ma ahane waxa weeyaan waa producti waxa weeyaan shaqaynaya oo consumable oo la isticmaali karo oo wax taraya financial stable ma sha Allah forever waxa weeyaan waa ganacsi inuu sii koro ma ahane aan hoos u dhacayn يعني أن مارتي مرنا هذا كور ولين ويوحى سمتيم كأت سمايسي تقالها أي سمينيان أي أدينا كو إيمانية أدو جس هسيحن التيم كأجا سيكوري سيبادي هذا تقال في عندنا يصير هبين هسيحن ما لنا هسيحن هو يعني واحد سمايسا 1 minute هسكت ضيعين جناحسي جوانو ستيبل أو سعلا هذا سوي جديد وهذا النقد إنك سحتها سعيد دي بدلاي إن ير هدي هذا البريكس يرى حاجة دول عشاء يرى سن قطيد waad ka dareemaysaa ganacsigaaga hoos u dhac weyn baa ku imanaya laakiin haddii aad barnaamij ku degsan yahay oo aad minute-ka ku xisaabtamaysid oo waxba aan dhulka ka oolin wax walba qof aad ula socotid lead teamkaaga aad 1 by 1 ula socotid iyo waxa uu faa'iideeyo iyo dadku ma boqolaal gaarayo oo idan isaqoon laakiin aad nadka halka isku barateen oo adana xaaladooda aad la socotid waxa weeyaan si fiican baad ula socotaa ganacsigaaguna wuxuu noqonayaa stable buu noqonayaa ma sha Allah walwalna kuma jirin happy baad ahaanaysaa moral baad ahaanaysaa happy ma sha Allah qof faraxsan baad ahaanaysaa ما شاء الله vertical integrated يعني waxa weeyaan waa wax dhisan oo ma sha Allah isaguna aan ahayn de wax isku dhacay oo de horumarkiisu sii socdo international presence wax weey ganacsigaagu ma aha ganacsi local iyo maartay meelaha hoose wax weeyaan waa wax international oo meel walba adduunka aad wadanka aad doontid aad ka qayb ma la aad
ka furan kartid branch ama aad team ka samaysan kartid ama aad ganacsigaaga ka hirgelin kartid featureskaas oo dhan markaad isu geysid waxay ku tusayaan waxa kaaga soo baxaya waxa aad ku faani kartid oo ah sababtii aad forever ugu soo biirtay sababta aad imika ugu jirtid iyo sababta aad ugu jiri doontid oo aadan weligaa uga liici doonin ama aadan meel kale uga doorsan doonin ayay ku aseen garanayaan ama ku xaqiijinayaan okay income source-ka marka forever waxyaabaha aynu ka rajaynayno maxaa ka mid ah marka ilaa meel cidlaa inaan wax ka rajaynayn isku xijin min waqtina iskaga lumin maynayn kow horta retail profit waa kii aynu kasoo hadlaynay oo ahaa retail profitka alaabadan aynu iibinayno waa dukaan karan soconaya oo joogto ah oo aan cidi igu controlin oo intaan doono aan soo iibsanayo maasha allah oo xilligan doono aan iibinayo oo qaabkan doono aan u iibinayo ama direct ama indirect ama online ama offline sidaan doono ayaan u iibinaya maasha allah yani waa ganacsi aan totally yani kelima waxda waa ganacsi aan xad lahayn weeyaan bal oran kara iib aan xad lahayn si alla sidaad doonto ayaa alaabtaada u iibinaysaa wax weyn waa cash daily cash weeyaan preferred customer profit waxa weeyaan kana waa customerkii preferred customerkaas aad shaqada ku soo dartay profitkii aad ka helaysay weeyaan faa'iidadii aad ka helaysay preferred customer bonuskii aad ka helaysay isagana midna waa commission midna waa bonuskii weeyaan marka u horeysana waxa la yidhaha commission ayaad ka helaysaa oo qofka aad markaa kusoo xortay commission aad customerka ama FBO-ga marka aad ka dhigtay waxaad ka helaysaa faa'iido marka uu qofkaasi dad sii keeno isaguna waxa weeyaan bonuskii iyo teamkiisa kasii hooseeyo bonus ayaad ka helaysaa kaasina waxa weeyaan waa group bonuskana waxa weeye mar haddaad leader tahay iyagana teamkaaga iyo waxay sii keenaan iyagana waxaad ka helaysaa bonus ayaad ka samaynaysaa leadership bonuskuna dabcan waa markaad manager gaartay ayuu isaguna ku imaanaya isagana halka isagana ayuu kaaga samaysmaya leadership bonuskuna insha allah isaguna waa dhaqaale aad u fara badan baa kaaga imanaya dad fara badan adigu aadan ogeyn meelo ay kala joogaan xitaa oo iska iyagu shaqaysanaya oo iyagu u tartamaya manager iyo meelo ka sarreeya ayaa adiga si indirect dhaqaaluhu kugu soo gelaya maasha allah eagle managerkii iyo waxyaabihii waxa weeyaan incentives-kii waa la galay markan iyo forever to drive bonuskii global rallygii chairman bonuskii iyo gym bonus chairman bonuska iyo gym bonusku maxay kala yihiin chairman bonusku waxa weeyaan waa faa'iidadii ka soo noqotay ganacsiga shirkadda sanad walba faa'iidadii shirkaddu ay faa'iiday ayay waxay u qaybisaa FBO-yadeedii ama leaderskii ugu shaqada badnaa ama qof walba intii uu samaystay managerski dabcan of course waa managerskii leaderka kale ma aha dadkii inta darajada manager gaareen waliba senior manager gaareen manager kale soo saaray si u kala sareeyaan ama u kala team badan yihiin ama u kala maartay faa'iido badan yihiin ayay marka u kala helayaan kumanaan bay ka bilaamaan dhowr boqol dhowr kun ilaa ay malaayiin gaaraan dadka qaarkiin ay millions qaataan chairman bonusku waa jeega weyn aad aragteen meelaha iyagoo inta jeeg lagu qolaa meelaha lagu soo barnaamijyada lagu soo sameeyo ama meelaha bandhigyada aad ku aragtaan weeyaan chairman bonus baa kaa la yiraahdaa maasha allah gym bonuskuna waxa weeyaan waa kan isaguna waa shareka shirkadda aad ku yeelanaysid insha allah dabcan isagana waxa weeyaan waa shirkadda wuxuu noqon doonaa waa meesha ugu dambaysa shirkadda laga gaaro waana lacag aad u fara badan marba haddaad shirkaddii forever aad share ku yeelatay whatever sharekaas ha noqdo xitaa hadduu doono 1% ha noqdee 1% 2% 3% 4% ilaa 9% buu gaaraa waan filayaa ayaad ku yeelan kartaa insha allah waana lacag aan runtii xaddi lahayn aan tiro lahayn weeyaan maasha allah waan rajaynayna inaynu gaarno biidni illah waayahay guntii iyo gabagabadii haddaynu kusoo dhowaano walaalayaal dabcan waxaan idiin sheegaya waxa weeyaan waa kuwa haddaan ka hadlayay dadkaasoo dhan waa dadka xaqiijiyey chairman bonus miyaad garanaysaa waxay faraha la taagayaan ama afarta la taagay inta badan waxay aad u fahmeen dadkani waa 4cc-ga weeyaan sirta ku jirta forever waxa weeyaan saaxiibayaal walaalayaal waa 4cc-ga weeyaan 4cc-ga haddaad fahantay waxa weeyaan maasha allah waxaa xusuud mudan ilaahay khayras iyo wiil ka mid ah tiimkayga oo kale Khalid in la yiraahdo maasha allah ayaan wada tijaabinay bal 4cc-ga la sheegayo hadda faa'iido uu leeyahay bil ka mid ah bilihii la soo dhaafay ayuu si yani si aan caadi ahayn ayuu isugu taxallujiyey in bal tiimkiisa oo dhan uu ka simo 4cc muddo kooban 3 bilood gudahood waa kan hadda maanta manager kusoo baxay alxamdulillah waxa weeyaan wax kale mu isticmaal wax kale ma adeegsan maasha allah tiimkiisa kaliya ayuu fahansiiyey sirta iyo khidada meesha ku jirta iyo tricks-ka meesha ku jira inaan wax kale ahayn inaanay forever ahayn sida loo kala lacag badan yahay inaanay forever ahayn sida maartay wadamada la kala joogo aan ku xirnayn Soomaaliya iyo Mareykan iyo Europe inaan ku xirnayn laakiin how you understand the system waxaan leenahay secret kale ma jiro aan ahayn systemka inaad fahantid there is no secret but there is a system forever systemkeeduna waa kaan idin sheegay waxaan waa 4cc active-ka weeyaan wax kale shaqada oo dhan intaas ka hoos jirta haddaad dootid indhaha ka xiroba haba isku dayin inaad raadisid manager inaad noqotid supervisor
ha ka fekerin inaad noqoto assistant supervisor assistant manager ama managerba keliya ka feker in 4 cc aad bil walba samaysid keliya ha raadin 25 adigu you are the FBO don't search 25 cc ha raadinin laakiin waxaad raadisaa teamkaaga hoose inay 4 cc keliya sameeyaan bar intaa qura isticmaal waxaad arkaysaa within 10 days 2 days ama 4 days waxaad arkaysaa adigoo automatically supervisor noqday laakiin haddaad tiraahdo dad cusub baan ka keenayaa waxaan ku samaynayaa 25 cc ka helayaa waad ku xiiqaysaa waad ku daalasa xaqiiqatan dadka cusub aad raadinaysid ha kaaga filaadeen 4 cc bil walba 2-3 qof kaliya qor 4 cc kaaga filaada laakiin teamka iyagana sii bar inay sidaa sameeyaan inaad fahanteen baan u maleynayaa they did it and you can too also dadkani sida ay sameeyeen inaguna waan samayn karnaa waxaan u maleynayaa intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa caawa trainingkeennii aad iyo aadna waad u mahadsantihiin ma doonayo inaan waqti badan idinka qaado aad iyo aadna waad u mahadsantihiin walaalahay